gobolka mudug waxa uu ka mid yahay gobolada dalka Soomaaliya balse markii la soo hadal qaado waxa dadka dhagahooda ku soo dhacaya maxaa ka dhacay waayo waxa lagu bartay colaad sakeeyo oo muddo ka badan nus qarni halkaasi ka taagneed taasoo u dhaxaysay dad walaalo ah oo ayagu markaasi wada dega qaybo ka mid ah gobolka mudug balse hadda waxa ka jira nabad buuxda dhawaan ayay ahayd markii shir ay isku yimaadeen dadka walaalaha ah ee ka soo jeeda labada maamul ee Galmudug iyo Puntland halkaasi oo shir geed hoostiis ka dhacay ay isku yimaadeen cuqaashooda waxgaradkooda iyo culimadooduba isla markaana ay ugu baaqeen in nabadgelyo lagu wada joogo deegaanka waxa madasha ku sugnaa ururada haweenka gobolka mudug odayaasha dhaqanka labada dhinac iyo dhalinyaradaba nabadoon Maxamuud Geesay oo ka hadlay madasha waxa uu ku nuuxnuuxsaday qiimaha ay nabadu leedahay haddii la ogaado inuu baqtiyay oo booraysanayo daaradu waa isku tago waxa la islaamku inuu aqdo in xoolaha biyaha looga wareega ka daran waxa la hawiya biyaha looga wareeg waxaan idin leenahay ninka godad cabay ninka bitaala caba manala ka heli karaa nin la muslimka haddaan biyaha iyo ceesha aan joogo looga wareegin kuna tukan mahaya cabina mahaya caanahoodana ma rabo nin maanta oran kara manala ku arka dadka saasaa lagu dhaqi jiray waana la wada dhashay aniga halkaa ka soo jeeda iyo aniga dhalashayadu intay isku jidho annaga waa isku dhowna inaan isku dhownaha ma u jeedaa wixii la soo marana iimaanka iskuma aanaan qabin wali inaan meel ku wada cashayno annagu waa wada degnay shaahana waa wada cabnay gabdhahana waa kala guursanay magaalana waa wada deganahay habeen iyo maalin idinkuna waxaan idinkula talinaynaa inaad saas oo kala yeeshaan waxaan kaloo ahay anuu dadkan dhulkan joogi jiray oo ka warqaba 35 sano ka hor reerna kurtaasuu deganaa reerna taasuu deganaa dabadeedna dagaal baa ka bilowday markaad u fogaataan reerna kaasuu joogay reerna kaasuu joogay wiilashiina waa dhinteen barna waa naaf xoolihiina waa dhumeen maxaad haysaan oo faa'iidaa ma noo sheegi kadhaan waxa ka macaashteen oo aan dhibaato ahayn iska daaya marka annagu waxaanu ku heshiinay waagii hore waxaan idin keeni jiray dawada raashinka rasaasta qoriga baabuurka xabadda lagu rido xabadna keeni maynaad dhaawac qaadi mayno maydka aasi mayno rasaasta gooday keeni mayno dhakhtar keeni mayno intii horena ilaahay baan uga toobad keenay warsoo kama aynaan toobad keenay ilaah baan uga toobad keenay una noqon mayno idinku haddaad iscuntaanna cadaabna waa ku tegaysaan ayadda quraanka baa inoo ku sheegay ilaahay qofku qof dila waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannama khaalidan fiihaa waqadiba allaahu calayhim oo martay sharafkaan noo dhigay guud ahaan waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahad iska leh maanta meeshaas kuu keenay haddana bartaa roobka noo geliyo isku geedkaan la keenay ilaahay mahantaas noo sameeyey baan u shukrinaynaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walaalayaal waxaan ka hadlayaa laba tifood waxaad maanta arkaysaan oo innihiinna ku arkaysaan odayaashii in hal nin u hadlahay odayaashii mudug inay heshiis yihiin oo nin u hadlahaya arkaysaan markaan kor inkaga bilaabo labada madaxweyne dani iyo ninka la qoorqoor waa heshiis siyaasadooda waxaa sidoo kale ka hadlay meesha xaaji maxamed iyo qaar ka tirsan odayaashii ka soo qayb galay kulankii la iskugu yimid geedka hoostiisa kulanka oo ah kulan saacado fara badan socday isla markaana dhacay bilowgii sanadkan ayaa markii dambe waxaa ka hadlay madax ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug waa labada maayir ee gaalkacyo oo ayagu markaasi qayb ka ahaa waftigii meeshaasi tagay waxayna ku baaqeen isla markaana ay u sheegeen shacabka labada dhinac inay ku noolaadaan nabad waayo waxa ay tilmaameen nabadda wax ka wanaagsan inaysan jirin
وأوت أنتم صفوا أنتم وحدنا كعرة يرتي المية وصار ولله نجسوا قد بي الحمد لله رب العالمين sidoo kale waxa laga yaabaa inay yar tahay inuu reerkiisa iyo ilmihiisa iyo xaajiyadiisa si nabadan ula seexdo inay yar tahay geed u galo ilaahay naga soo gudbiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin inta dambana waxaan rabnaa inaan ka goorno maanta dhow aan indheynay dadka magaalada ka yimid xamaasadda ay gacnitaanka u badnaayeen waxaan isleeyahay raggan su'aal baa ku dhiman saaxiibada ee runta inaan laga leexdo uma baahno magala maqan baa jira matawasho kalaa jidha aad iyo aad bay hoosaysaa runtii xamaasadooda aadaan dhammaysta wixii aan ku gafana xambaari karaa ahay markayga la isaanaya hadduu ilaahay yidhaahdo runtii waxaan rabaa nabaddan waxaa gun u ah waa idinka ilaahay fadligiisa dadka idinkaabaya oo ehelka oo imaanaya waxaa ka muhiimsan dadka wada degan oo ehelka oo ay isku muuqdaan guryahoodu oo ay isku dhegan yihiin aqaladu maalina halkaa geel ku kala wareejinaynay aawo xanan nin dhallinyaraha noo yimid markaa arrinta gabangaba marsayana wuxuu yidhi inti yaroo waxaa iga maqan 3 jir iyo wuxuu ku sheega maqan ma iga maqan buy waa lagu aniga injineer maxaa cabdunuuri waa ku raadinaynaa inaad aro meel fariiso rag badan baa isla joognay aan ogahay ibraahim ciise inay ka mid ahaayeen iyo gudoomiye cabdullaahi abshiri maalinkii dambe waxaan annagaa kugu maqan nasub xagga markaa tagnaa waxa lix neef buu ka haysta war waxaa nolol ma ilaahay qaadir war waxaa nolol ma ilaahay qaadir illa sabray u baahan tahay dadkan hadda xatooyadii iyo xoolihii waa ka yimaadeen waxaan rabaa inaan walaalahay ku soo khatimo war wixii xoolihii hore ka dambeeya dhankay rabaan hajoogaa la iska soo celi ilaah baan ku dhaarshay war galabtaa la soo celi wixii baaqiya galabtaa laga soo celi ilaahay dartii soo celiya ninkii wax gadaalku wixii naga tagay intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacan allah caafiyo dhul lama kala qaadin dadkiina waa dhammaadeen wax xigmada ma abtigi maalin guur allah u naxariisto waxaa laga sheegay ciil beel ciil siyaasheeda inaa qof dhintay qof u disho asay waxba u tarimayso laakiin adiga ku akhrisay waxaan aaminsanahay qoriga galabta halka sida lagu istaagay hal abuurka musharax maxamed siciid yare aad iyo aad baa umahadsan tahay aad baan kaga mahad celinaa runtii qodobka weyn arrintaas inay halkaan ugu dhaafto quracaana inaan inaa qurac ijaabo inaan u bixino qurac ijaabo insha allahu tacaala aana ka dhabayno runtii maasha allah runtii waxaan rabaa warbixinada aad iyo aad u xanuunka badnaa oo ilaahay naga soo gudbiyey ee aan u baahan inaan galabta la iloobin maanta oo dhan waxaa lagu celcelinaya war gabdhaha iyo halaka bar dadka gabdhaha hayo ay ilmaha u dhaleen oo waalid ciidana iyo 2 gaari oo safarjanta u shaqaynaya ciidanka xasilintuna iyaguna waa noo diyaar waa walba heegan bay ahaayeen inay nabadda gobolka ay caawiyaan bay diyaar u ahaayeen intaasna waxa weeye aniga cabdiraxmaan waa isku waafaqnay mar haddii ciidankii la yidhi ha ka shaqeeyaan nabaddii waxay u baahan yihiin tasiilaad waxaynu ogsoonnahay markii naqu da'o labada dhinac qolo walba inay ciidan oo boosa samaysan jiray cad iyo caano iyo raashin iyo wax loo diyaarin jiray soo maha ciidamada 36 raashinkooda waxaan saarnay dadka deegaankaan saarnay ciidanka raashinkiisa aniga hilibkii iyo raashinkii waxaan saarnay dadka deegaanka aniga cabdiraxmaanna waxaanu qaadnay tasiilaadkii kale oo ciidankaasi ku shaqayn lahaayeen koow ka yihiin shidaalkii dayactirkii gaadiidka annagaa dusha u ridanay labada dowlad goboleedna waxay bixin doonaan mushaaraadka ciidankaas haddaba iyagaa bixiya qorshahaas waa qorshe isku xiran baan u malaynayaa 36 askari iyo 3 gaari waxay la shaqaynayaan guddigii nabadda ka shaqaynayay oo deegaankan oo hoos imaanaya guddiga guud ee gobolka mudug oo suldaan cabdinaasir kacsan gudoomiyaha u yahay annaguna aadimada aanu nahay fulinta qorshahan haddii ilaahay idmo fulinta qorshahan waxaa wada fulinaya maamulka degmada gaalkacyo maamulka gobolka mudug odayaasha nabadda iyo isdhexgalka ka shaqaynayay ayaa fulintooda ka shaqaynaya halkaanaana saldhigu noqon doonta ciidanka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo tirada ciidanku noqonayo tirada uu noqonayo guddigu waxaan u daynaynaa gudoomiyaha guddiga nabadaynta ee guud ee gobolka mudug iyo odayaashiisu inay soo jaangooyaan
odayaashii hore oo shaqayn jiray inta lagu darayo inaanan u kala tegin baan rabnaa saraakiisha ciidamadana amarka aan siino gabdhaha khayrka jecel oo halkan ku baaqay in laga dhiso hoolkii aniga cabdiraxmaan diyaar baan u nahay inaan hoolka qaybteeda qaadanno dugsiga qur-aankana in la dhiso halkan inay noqoto xaruntii nabadda bariga gobolka mudug laga maamulayay